Your Excellencies, IGAD Foreign Ministers. meertada 36 ee shirmadaxeedka urur goboleedka IGAD oo ku qabsoomay sanadkan hanaanka fogaan aragga waxaa ka qayb galay madaxda dawladaha ku buhoobay ururkan oo ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana kulankan gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Suudaan Mudane Cabdullaahi Xamduug hirgelinta hanaanka geedi socodka nabadda ee dalka Koonfurta Suudaan hanaanka xog isdhaafsiga jawaabaha ku aadan safmarka COVID-19 ee heer goboleed iyo wada xaajoodiye iyo arrimo quseeya dawladaha xubnaha ka ah ururkan ayaa lagu lafoguray muddadii uu socday shirkan waxaana hadal jeedin ka sameeyay dhammaanba madaxda dalalka ku buhoobay IGAD madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay kulankan ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin muhiimadda nabad iyo dib u heshiisiin ka hana qaada dalka Koonfurta Suudaan iyo sidoo kale dhibaatada ba'an ee dalalka gobolka uu ku hayo safmarka COVID-19 wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyay qodobadii looga hadlay shirkan iyo waxyaabihii ka soo baxay waxa madaxda dalalka IGAD ay yeesheen shir ku dhacay Zoom-ka kaas oo looga hadlay ajandihiisa ay ka mid ahaayeen dib u heshiisiinta iyo dib u dhisidda dowladda ku meel gaarka ee South Sudan dalka South Sudan ee aynu walaalaha nahay iyo sida gobolka IGAD uu uga jawaabay jirada COVID iyo saameynta ay lahayd marka madaxweynaha khudbad ayuu ka jeediyay oo bogaadinayo dalka South Sudan horumarka ay ka gaareen geed socodka nabadeynta iyo inay dib u dhisteen dowladooda ku meel gaarka ah ay ku heshiiyeen oo nabadaas ay si fiican ugu socoto iyo wuxuu kaloo tilmaamay Soomaaliya horumarka ay gaartay iyo saameynta ay jirada tani ku yeelatay dalka dhaqaalihiisa iyo dadaalka Soomaaliya ay ka gashay sidii jiradaas looga hortagi lahaa sida dalalka kale ay uga hadleen Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka